ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa saacadii la soo dhaafay waxay howlgallo qorsheysan ay kula wareegeen magaalada Xawaadle ee gobolka Shabeellada Dhexe halkaas oo ay ugu dambeeyay ku sugnaayeen dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab. ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya oo saacadii la soo dhaafay howlgallo qorsheysan ka fuliyay deegaanada u dhow magaalada Xawaadle ayaa ugu dambeeyay waxa uu suurto gashay in gudaha u galaan magaalada Xawaadle oo ah magaalo istiraatiiji ah isla markaana muhiimad weyn ugu fadhisay dagaalamayaasha Al-Shabaab. ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya oo kaashanaya dadka deegaanka ayaa saacadii la soo dhaafay waxay howlgallo qorsheysan oo isdaba joog ay ka wadeen gobolka Shabeellada Dhexe iyagoona la wareegay deegaano fara badan oo ay ugu dambeysay magaalada Xawaadle ee gobolka Shabeellada Dhexe. war qoraal ka soo baxay dawladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay saacadan gudaha u galeen isla markaana ay ku sugan yihiin magaalada Xawaadle ee gobolkaasi. waxaana saraakiisha hogaaminaysa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay sheegeen in ay sii wadi doonaan howlgalka ka dhanka ah dagaalamayaasha Al-Shabaab ilaa ma ay ka sifaynayaan isla markaana ay ka saarayaan deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka Shabeellada Dhexe. ciidamada dawladda ayaana waxa ay wacd ku mareen in Al-Shabaab ay ka saari doonaan guud ahaan dalka.